إنا لله وإنا إليه راجعون مرحون إنجنير عثمان داهر آدن وأها إنجنير كدسي دسمياشن دتا قودي سوماليلان وقتيدي ودحيي كون سغال بقول لحدنكي لا لبدي كون أيامان تاس قرولوغو سميي مقالة هرقيسا إنجنير عثمان داهر آدن أيا وحا لغو حسوسان دونا دسمياشي وفوليه وقتيغو برسابكا كاها بلا رفل قوليد وقتيغاسيو لورنجري سوماليلان قبلد وقويي ayaa mashaariicii uu hirgeliyay waxa kamid ahaa tiyaatarka Hargeysa dhismaha carwada hidaha iyo dhaqanka ee Hargeysa dhakhtarka weyn ee Hargeysa iyo mustajaamaca iyo badi wadooyinka iyo bariishada Somaliland marxuunka oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku xanuunsanayay magaalada Hargeysa ayaa habeennimadii xalay ku geeriyooday isla magaalada Hargeysa taasi oo gelinkii hore ee maanta aasqaro loogu sameeyay xabaalaha Sheekh Nuur ee bariga magaalada Hargeysa waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin siyaasiyiin iyo ehelada marxuunkaasi iyagoo alla dhammaan dadkaasi ka soo qayb galay aaskaasi marxuun injineer Cismaan Daahir Xasan alla uga bariyay inuu naxariistii janno ka waraabiyo waxaynu joognaa maanta aaskii marxuun Cismaan Daahir Aadan ilaahay ha u naxariisto jannatul firdaws ilaahay ha ka waraabiyo Cismaan Daahir injineer Cismaan Daahir waa nin la garanayo oo runtii Hargeysa farihiisii iyo waxqabadkiisii ay ka muuqdaan oo yeelaan waxa uu sheegay bila rafle barigi dhaweeytay uu yimi waxa la yaaliyo wixii uu qabtay uu ka qabtay magaaladaas ilaahay markaa ay soo muuqato ninkii fulin jiray inuu ahaa Cismaan Daahir inuu ahaa wax badan buu dalka iyo dadka u qabtay ilaahay waxaynu u baryaynaa inuu jannatul firdaws ilaahay inuu ka waraabiyo qabriga ilaahay inuu nuuro wixii dambi lahaa ilaahay uu ka dhaafo ehel iyo asxaabtiina ilaahay inuu sabir iyo iimaan ka siiyo dadka ka soo qayb galay aaskaana ilaahay inuu ajri iyo abaalmarin ayagana ka siiyo ilaahay ha u naxariisto Cismaan Daahir Aadan Cismaan Daahir Aadan wuxuu ahaa dalka wax qayb weyn ku lahaa ilaa ingiriiskii laga bilaabo ilaa ma intii ay dalka soo galay dhismihiisu waa ka wada muuqdaan waxa imika dhakhtarada la ah ama meelaha waaweyn ama meelaha lagu waaweyn oo dhan isaga dhisay Cismaan Daahir waxa weeye Cismaan Daahir wuxuu ahaa nin daacad ah oo dalka u daacad ah oo wadaniya oo dhismihi aad ugu daalab wuxuu ahaa nin ehelka jecel oo naxariis badan buu ahaa nin naxariis xagga naxariis badan buu ahaa waxaanu ilaahay uga baryaynaa inuu jannada firdaws ku maamuuso nabiga hargeysa ilaahay ka dhigo ilaahay ehelkiina samadiina alla ka siiyo iyo ilaahay ugu weydiiyeynaa بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي وحين قبرنا عثمان ظاهر مرحوم كمان إنه حباشي سيشوجنو إلهي سنوي كيس واسع كورابيو إن إلهي دبي صدافه وحكلون هل كنت تحسوا قدر يا أهل كي يا قرابتي يوم مدرس سومالا ذو كبحي وحليها إلهي هل كيسي خير عول قوا الله إنه بدلو استجنا إلهي دبي صدافه runtii wuxuu ka mid ahaa dadkii qiimaha lahaa ee dalka Soomaaliland dhismaheeda iyo horumarkeeda aad uga soo wada qaatay uga soo qayb qaatay wuxuu ahaa nin aad iyo aad u qiimo badan oo aan aad isu naqaanay oo saaxiib ahayn ilaahayna waxaan uga baryay ilaahay sanooyinkiisa waasic geliyo dambigiisana dhaafo dhammaanteen ba ilaahay samriyeeman Allah inaga ilaahay ha u naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaynu tacsiidiisa maanta joognaa nin odaya oo weyn oo wadankan caan ka ahaa oo laga yaqaan oo ragii ilaa dawladnimadii Ingiriiska laga qaaday dhulka joogay oo wax ku lahaa xoreynteedii iyo dhismaheedii dambe iyo intaba Cismaan wuxuu ahaa nin waayeela oo khabiira oo aqoon leh oo khaasatan dhismaha mashaariicda iska wax u qabso la isku tilmaamo bila iyo baa fuliyay ragacankaas wuxuu ahaa ragii khubarada ahaa ee mashaariicda fulin jiray Cismaan ilaahay ha u naxariisto taariikh buu ku leeyahay sidaas uu caan ku ahaa intii dambana odayaashii wadanka ka talinayay ilaa imika maanta soo halgamiyay buu ahaa waxaan leeyahay ilaahay naxariisto jannaha siiyo inagana samir iyo iimaan inaga siiyo ehelkii iyo qaraabadii iyo qoyskii iyo akhyaartii taqaanay iyo intii uu jeclaaba ilaahay sabir iyo iimaan ka siiyo kullu nafs daa'iqatul maut inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay ha u naxariisto
cismaan daahir wuxuu ahaa ilaahay u naxariistay raggii hargeysa xukuumadda u dhigay wuxuu ahaa raggii hargeysa maanta inta la tilmaamay ee farta lagu fiiqo intaa ninkii dhisay buu ahaa wuxuu ahaa hargeysa ninkii kala bixiyey ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo waxaa kornaalankan tacsi uga dirayaa ehelkii iyo qaraabadii iyo dhammaan qaranka Soomaaliland ee uu ka baxayna waxaan leeyahay Soomaaliya meelaha ka siiyo كل نفس ذائقة الموت إنا لله وإنا إليه راجعون 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد أسكن ما أنت جوجنا عثمان داهر إلهي وحنا قبرينا إن إلهي جنة في الدوساء إلهي جي أبواب كتشنا الله وفره سؤال سؤال بيريو لما أنت نقول إلهي خاتم الخير وختم بينه إلهي وجينا إن سمر يمن إلهي كسيودة كوحي وكتجي يد لما المجتمع عدل كنا نكون الله إلهي وحين أبرينا إلهي نحل جنة كورابيو لين وحوها قاليو وين إلهي بوين واحده دل كنا وحك سوق بتي وحين إلهي وجينا مالين كسته dee cid unbaa maalin walba waxaan ku leeyahay oofsanayay waxaynu ilaahay weydiinaynaa ilaahay khaadimo khayr nagu khatimo dadka iyo dalkana ilaahay tawfiiq siyaabeynu weydiinaynaa halkaas ayna horhane amalkii saalix ahaa ee wanaagsana ayaynu dadkana faraynaa inay sameeyaan oo nin walba xasuusto xabaashaas horhane ilaahayna khaatimo khayr nagu khatimo اللهم صل على محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمعلمين والملا وحقنا علينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات احياء منهم والاموات ارحمهم ورحمنا مع برحمتك ارحم الراحمين وارحم هذا المرحوم يا رب العالمين رحمة واسعة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين الفاتحة إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت ما أنت وحن شوقنا آسكي عثمان داهر آذن الله أون حريستو إلهي وحن وقبرينا إرجعنا هيدا مانتيو ومضى رير سومالي أنا هالكاي سوقتمي إرجعوا حنون هاي مرحومك عثمان داهر آذن إلهي وحن وقبرينا إنه نحرسنا كورابيو دنبيسين ودافو إلكي يا صحابتي يوم درير سومالي أنا سمريه من الله وكسيو إينا وقبرينا إننا الله نقدر دبنا حريصو حاضر كان سو حاضرنا إلهي نقدر مدافع هاي نحريستي جناح كورابيو وحنك تعسيدين يا دمان أهلكي يا غاربكي يا أولادي وحنك تعسيدين يا مرحوم كان إلهي وحنقول رجينا إنه إلهي جنة الفردوسة ودردورسيو أمدي وكتجي يو odayaas shacbi weynihii reer Hargeysa iyana waan ka tacsiideynaya Ismaan Daahir wuxuu ahaa odayaashii ilaahay ha u naxariisto ugu qiimaha badnaa gobolkan Leydha Maroodi Sheekh gaar ahaan magaalada Hargeysa waa marxuum taariikh weyn ku leh taariikhdiisa ay dhammaan odayaashii iga horeeyay ka soo wada sheekeeyeen aniguna waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay godka ha u nuuro inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maanta waxaynu joognaa geeridii aaskii عثمان ظاهر الله ونحرسته ومد الصومالي لأن سمري من حكسيه قيسكي يا قرابدي وكردنتين سمري الله حكسيه وحقف وين أو ضل كان يضد كان وحوسه قبطي أو اسمياشي يو وضلك عقب كيم حكدسن رجي سو لسبوا كم يضحى الله ونحرسته الله ونحرسته إلهي جندي هكورابي بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي سمريه من نقصي دمانتين إلك قرابة أصحابته قرنك الجمهورية الصومالية دمانتي وضي وين عرس بها إلهي نحرسنا كورابيه قفل كل نفس ذائقة الموت قفل بس عدي سوبر دمانية قفل بنموت كوسويا إن الحقوق هذا نوم بمهيبة إلهي قبرنا هون نغرو ما أنت وحين شوقنا آسكي عثمان ظاهر آذن إلهي نحرسنا الله كورابيه دمانتين ehelka iyo qaraabada uu ka gooriday kulligeen wada ehel baan nahay Soomaaliyeeman Allah ka siiyo Soomaaliland iyo dadka af Soomaaliga u hadlo dhan buu ayuu ninkaas ka dhintay Allah naxariistina Allah ka waraabiyo gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland Soomaaliyeeman Allah ka siiyo say u dhantay
taariikhdiisii anigu in yar haddaan ka sheego annagu caylad baannu ahayn reer ahaan markaannu ahaynay haddana waannu isa sii xigno isaga iyo hooyadiiba habra wadaagaha taariikhdiisa haddaan in yar ka taabto cismaan daahir waxaa injineerkii howlaha guud ee xilligii uu bilo rafsane joogay gobolkan waqooyi galbeed la odhan jiray ee iminkana jamhuuriyadda somalilan caasimadda u ah xilligaa waxaa injineerkii raray xaafaddii la odhan jiray laba nuux ee howlwadaagu raray wuxuu ahaa xilligii ninkii xaafaddii daamin la odhan jiray raray ee ballaadhiyey wuxuu ahaa xaafaddii dumbuluq injineerkii raray ee siinay geeyey wuxuu ahaa injineerkii raray xaafadda qudhacdheer la baxday ee halkan ka soo raray wuxuu ahaa injineerku ninkii tiyaatarka dhisay oo sidaad wixii garanaya dee tiyaatarka waa garanaysaan carwadii ku xigtay ninkii dhisay buu ahaa hargeysa qayb libaax iyo waddooyinkeeda ninkii dhisay buu ahaa cismaan daahir ee ballaadhiye hargeysa caasimadda ka dhigay maanta ay tahay ninkii ballaadhiyey buu ahaa sidaasuu inaga mudan yahay ninkii dhisay buu ahaa guriga xusubka ee iminka qabyada ah waxaan leeyahay malaayiin guri buu ka dhisay intuu injineerka ka ahaa howlaha guud hargeysa intuu joogay ayuu in badan dhulkan wax badan u qabtay sidaasuu taariikh ku leeyahay somalilan sidaasaa raggii la soo shaqeeyuu ka mid ahaa biro rafle guuleed ay ugu ammaanaan taariikhda markay meelaha ka hadlayaan cismaan daahir aadan taariikhdiisii waa la sheegay wuxuu soo qabtay waa la sheegay wuxuu ahaa nin waddanka u soo halgamay markii bale rafle uu yimi su-aashu weydiiyey wuxuu lahaa cismaan daahir ma nool yahay buu leeyahay cismaan daahir ma nool yahay baa leeyahay cismaan daahir halkii buu ugu yimi ku soo salaamay dabeeto wuxuu sheegay wax alle wuxuu magaalada hargeysa ka qabtay iyo wuxuu waddanka u qabtay laba tirin karo cismaan daahir wuxuu waddanka u qabtay nin daacada buu ahaa nin dadku isugu mid yahay buu ahaa nin akhlaaq wanaagsan buu ahaa nin dadka xidhiidhiya buu ahaa ilaahay waxaynu uga baryaynaa in naxariistiisa ilaahay ka waraabiyo samir iyo iimaanna ilaahay inaga siiyo ummadda soomaaliya oo dhan ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo khaasatan dadka reer hargeysa wuxuu u soo qabtay in ilaahay tacabkiisii wanaajiyo oo ilaahay naxariis ugu siiyo qabriga ilaahay u nuuro qowlka taabida ilaahay ku tumo inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun cismaan daahir aadan sharmaarke ilaahay ha u naxariisto ilaahay ergada faraha badan ee halkaas ka timi ayaa markhaatiye ilaahay kuwa ha u aqbalo ergada allaha ah inaga aqbalo godka ilaahay ha u nuuro dembiyada ka dhacay ilaahay ha ka dhaafo ubadkii iyo ehelkii iyo qaraabadii intii ahaydna allaha samiriye iman ha ka siiyo taariikhdiisu waa nin weyn oo hargeysa reer hargeysa qudumadii hargeysa ah intuu joogay muctarif buu ku ahaa samataliyu ku ahaa nin ummadda xidhiidhiya buu ku ahaa ilaahay samiriye iman ha inaga siiyo ubadkiisina kaalintii qaar buuxiyo allaha ka dhigo kaalintii qaar buuxiyo allaha ka dhigo kaalintii ilaahay qaar buuxiyo ka dhigo dhammaanteedna ilaahay samiriye iman ha inaga siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariiso injineer cismaan daahir aadan oo aynu saaka aaskiisii joogno alla qabriga ha u nuuro ilaahay su-aasha ha u fududeeyo ilaahay jannooyinkiisa ha ku casuumo sidaa raggii hore sheegeen injineerku waxa uu ahaa nin waxqabad badan ka soo geystay jamhuuriyadda somalilan waxa uu dhisaayey weliba dan guud bay ahaayeen dan gaar may ahayn danta guudna sadaqatul jaariyun baa ka socota hadduu waddooyinkuu sameeyey dhismayaal badanoo lagu munaafacado dan guud uu sameeyey rag badan baa ka sheekeeyey mise jaamaca weyn bay saa dhismihiisa iyo baleenkiisa dejiyo sameeyey guryihii bila rafle laga sheekeeyay aniga bila rafle ninkii uu weydiiyey koowaad baan ahaa maalintii uu hargeysay bila rafle casuumaddii koowaad loo qabtay baa casuumaddii ka qayb galay markii la iskaaga baray buu gartay inaan caylad ahay oo inay deedna wuxuu yidhi cismaan daahir ka warran waa nool yahay buu magaalada ka tegi maayo buu yidhi aan arko alla waxaa laygu soo dhaweynayo ee aan qabtay isagaa qabtay buu yidhi qayb buu ka ahaa injineerkii shaqaynaya fulinayay buu ahaa buu yidhi anigu amarkumaan lahaa buu waxaa samee xaafadda ha la raro isagaa dhisayay buu yidhi waxaana ugu cajaayib badnayd buu baalka meeshaa tiyaatarka la yidhaha qalab maanu hayn buu waxba maanu hayn hoolkaa aragteenan tiir qura lahayn ayuu dhisay buu cismaan daahir maskaxdiisa iyo qalab uu maskaxdiisa ka alifay ayuu ku sameeyey qalabada imika lagu sameeyo dee fooqiyo waxa lagu sameeyo holasha waaweyn maynu hayn buu yidhi marka ilaahay ha u naxariisto ilaahay waxa uu qabtay dankuudana sadaqada jaariya ha uga dhigo oo ajar iyo xasanaadku ha uga socdaan inana waa u ducaynaynaa cismaan daahir taariikhdiisa la soo koobi kari maayo nin caana oo nin qarana buu ahaa
taariikhdiisa haddaynu saa ka horortay dhammayn mayno laakiin waxaynu xusaynaa inuu nin qaran ahaa magac wanaagsan adduunyada kaga tegey ayaynu xusaynaa nin danta guud ka shaqeeya ayuu ahaa mogti danta guud buu ka shaqayn jiray danta guud buu dhisi jiray aasaarihiisii iyo raadadkii iyo dibdikile wixii uu qabtayna dee waa yaalaan ilaahay ha ka tisaaysiiyo innaga iminka ducaa nagala gudboon isaga fahanka adduunyada waxba uga dan maaha iminka waxay wax uga dan yihiin inaynu u ducayno ilaahay waxaan baryaynaa ilaa qabriga ilaahay u nuuro in rawdatan min riyaad aljanna ilaahay uga yeelo ilaahay inuu rawdatan min riyaad aljanna uga yeelo warasadii kaa dhinay alla barakeeyo rag isagoo kale ilaahay ka dhigo ilaahay saasaynu ka baryaynaa inana ilaahay noo daba naxariisto waa geeri runtii xaqa oo naxdin leh waa nin weyn oo qarankan ka baxay waxaynu ugu ducaynaynaa marka hore ilaahay inuu naxariistii janno ka waraabiyo qaranka uu ka baxayna samir iyo iman dhammaantiin ilaahay uu ka siiyo gaar ahaan waxaan tacsiyadaynayaa qoyskii iyo qaraabadii iyo eheladii uu ka baxay injineer cismaan daahir aadan oo runtii ahaa nin qarankan taariikh weyn ku leh oo ka soo qayb qaatay horumarintiisa dhismihiisa ka soo qayb qaatay oo ku suntan ayuu ahaa waxaynu uga ducaynaa dhammaantood ilaahay inuu samir iyo iimaan ka siiyo qarankii wuxuu qabtay horumarintii uu ka sameeyaa la garanaya caasimadda tan aynu joogno iyo waxqabadkii muuqday iyo taariikhdii weynidu ku lahaa dhammaan waxaan ka tacsiyadaynayaa ehelkii qaraabadii iyo qoyskii uu ka tegey baan ka tacsiyadaynayaa maanta waxaan joognaa aaskii cismaan daahir ilaahay naxariistiisa ka waraabiyo intuu ka dhintay samir iimaan haka siiyo innagana samir iimaan hanaga siiyo hanooga daba naxariisto ilaahay waan ducaynaa wax kala odhan maayee cismaan daahir ilaahay naxariistiisa ka waraabiyo cismaan daahir wuxuu ahaa nin weyn dalkanna wax badan u soo qabtay hadday dibidhiskiisii tahay iyo hadday dibi xoradiisii tahayba rag ka qayb qaatay buu ahaa ilaahay ha u naxariisto waa marxalad la wada marayo waxaan ka sii tacsiyadaynayaa reer daahir aadan oo dhan reer cismaan daahir oo mustafa ugu horreeyo in ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo isagana naxariistii janno ilaahay ugu deeqo halkan waxaan joognaa aaskii injineer cismaan daahir oo taariikh weyn ku lahaa magaalada Hargeysa in badanna dadku ay wada garanayaan ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu qabriga u nuuro aakhirada u naxariiso dadkii ehelkii iyo asxaabtii iyo ubadkii ka tegayna samir iyo iimaan ilaahay uu ka siiyo iyo dhammaan magaalada reer Hargeysaba inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan tacsi u dirayaa cismaan daahir oo odayaasha waaweyn ee magaalada Hargeysa oo cismaan daahir waxaa lagu xusayaa taariikh fara badan oo gobolka Maroodijeex hadii la yiraahdo Hargeysa gaar ahaan Hargeysa tiyaatarka dhismihiisii injineerkiisii buu ahaa carwada injineerkiisii waa Mr. Jaamaca injineerkiisii buu ahaa taar badan oo imika muuqata cismaan ninkii ka tagay buu ahaa Allah ha u naxariisto ehelkiisii iyo dadweynaha reer Hargeysa waxaan uga tacsinaynaa cismaan daahir geeridiisa ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariistii janno ilaahay ka waraabiyo ubadkiisa iyo reer qoyskiisina celin ilaahay ka siiyo aan halkan tacsi uga dirayaa dhammaan eheliyadii cismaan daahir uu ka geeriyooday iyo dhammaan reer Hargeysa taariikh badan buu lahaa cismaan daahir oo aad loogu xasuusanayo dhismayaashii faraha badnaa ee Hargeysa ka dhisay waxaanan u rajaynayaa inuu ilaahay uga baryaynaa inuu jannada firdowsa geeyo qabrigana ilaahay inuu waasiciyo su'aalaha qabrigana inuu ilaahay waafajiyo ayaan ugu ducaynaynaa insha Allah ta'ala inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan joognaa aaskii cismaan daahir aadan injineer cismaan daahir aadan waxaan filayaa in badan baa laga hadlay laba arrimood baa halkan yaala tataalla waxa weeyaan cismaan weynu yara taaban wixii uu ahaa iyo wuxuu soo qabtay ilaahay sidoo noloshiisa soo mariyay talabaadna waxa weeyaan ducuu maanta u baahan yahay wuxuu u baahan yahay in ilaahay aynu u barino oo aynu u weydiino naxariistii janno albaabkii u horreeyay awwal manzil min manaasil aakhira ayuu joogaa ilaahay inuu su'aasha u fududeeyo qabriga u waasiciyo u nuuro
isaga iyo inta kale ku aasanaya ummadda nebi maxamedba ilaahay baynu taa ka baryaynaa allah inooga daba naxariisto ta labaad cismaan wuxuu ahaa nin isagoo yar daadiisu may yarayn soo galay magaalooyinka fahmo wanaagsan kuuli buu shaqada ka bilaabay iyo dhagaxuu qaado ilaa heer wastaad buu gaadhay heer injineer buu ku gaadhay waa ninka tiyaatarka iminka aynu arkayno dhisay ee dhisaynka sameeyey ee kii jaayina dhisay ee xamar ku yaallay ilaa siyaad barrihii dalkaasi laysu wada yimi ee la yidhi ninkan xaguu ka yimi jaamacadeebuu ka soo baxay jaamacadda somaliland ee horuu ka soo baxay taasu waxay ku tusaysaa fikirka iyo aqoonta ku jirta heerka ay maraysay ee heer jaamacadeed ahaa guriga hiddaa iyo dhaqanka ladhaa iminka halkan laga hadlo cismaan daahir buu ahaa ninkii sameeyey dayrkii horreeyey xabaalaha ninkii sameeyey isagu ahaa guriga xisbiga ee iminka gobanimo la yidhaahdo cismaan daahir buu ahaa waxa laaliye wax dhismo dawladeed leedahay cismaan adduunna kumuu dooni jirin dalkiisa wixii u hadhayuunbuu dee qaban jiray maantana wuxuu ka tegey magac iyo sharaf iyo karaamo nin cibaadada ku wanaagsan buu ahaa awlaaddiisana alla khayr awlaaddana ilaahay qaar khayr loo qaar ay ka beermaan allah ka dhiga awlaad wanaagsan baad joogta ee dalkaba yimi isla markaana dhisay la odhan karo hargeysa kala barhkeed ayuu dhisay sida mustajaamaca tiyaatarka carwada saldhigga iyo intii dalka la soo galayna 36 iskuul ama MCH oo laga dhisay degmooyinka ayuu dhisay waa injineerkii ugu horeeyay ee guriga xusbiga dhisa waa ninkii dhakhtarka weyn dhisay waa injineerkii ugu horeeyay ee soo saara waxa la yiraahdo dadka shaqaalaha la yiraahdo soo saara weey ilaahay naxariistii jannaha siiyo ilaahay naxariistii jannaha siiyo ilaahay naxariistii jannaha siiyo ilaahay beeraha jannada ah ha ugu bedelo qabrigiisa ilaahay ugu bedelo marxuuna ilaahay samiriye iimaan ha ka siiyo ilaahay samiriye dadkoodina ilaahay samir dhamaanteen ilaahay samiriye ilaahay naga siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaynu maanta halkan isugu nimi geeridii cismaan daahir aadan ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo wuxuu ahaa albani naga baxay weey injineerkii koobaad ee waqooyi galbeed buu ahaa ninkii hargeysada quruxdeeda maanta la daawanayo dhowr iyo 70kii berigii bila rafle barasaabka ka ahaa ninkii raray buu ahaa meel walba ee isagu sidaa u naqshadeeyey ilaahay u naxariiso maanta waa duco waxaynu qabanaa waa ducun buu inaga mudan yahay ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu jannadii firdawsi ka waraabiyo inuu beeraha jannada beer ka mid ah uga dhigo beydka aynu ku aasnay maanta weynin inta aan noolahay ninkaasi waxa weeyaan Cismaan Daahir weey ninkii injineerka ah ee hawlaha aad aragteen ila fuliyay inta waan raadinay nasiib wanaag daraataan helay isagoo nool gurigiisaan ugu tagay shalay toban soo kaxaynay tiyaatarkii baan geynay oo dhisay isagoo aan socon karin weliba oo aanu ku sawirnay hawsha ninkaasaa qabtay aniga ma aha ninka hawsha qabtay in lagu ammaano ay tahay ee lagu xusuusto ay tahay waa Cismaan Daahir weey inta uu nool yahayna in laga warhayo oo la ogaado oo meeshiisa loogu tago weey ninkaas wuxuu ahaa nin madaala ah nin aniga iga shaqo badan buu ahaa nin aniga maartay aan waxba ku saqajaamin buu ahaa shilinka ma uusan tabcanin weligay hawl aan u dhiibay oo waqtigeedii ka soo bixi waayay ma aanan arkin hadduusan wax ku darinba wax loo dhiibay oo wax ka dhimayna ma jirin marka ninkaas hadda waxaan u malaynayaa inuu uusan hadda uusan wax fiican garanaynin xanuun ama da marka in shakhsigaas kale laga warhayana way tahay